tiro ka mid ah culimada deegaanka ayaa carabka ku adkeeyay in tirada xad-dhaafka ah ee qashinka caagadaha iyo sidoo kale bacaha balaastikada ay khatar ku yihiin nolosha dabiiciga ah ee dhulka. daraasad ay soo saareen oo lagu faafiyay Science Advances muddo ka hor ayaa la sheegay aadanuhu waxa uu soo saaray intii la helay wax soo saarka balaastikada 8 bilyan oo tan oo ka tirsan, maadaama caagadaha iyo bacaha ay laba meelood waxa ay noqdeen kuwa lagu shubay goobaha qashinka iyo biyaha badaha. saynis yahanada Guy Camberg oo ka tirsan jaamacadda University of Georgia ee dalka Mareykanka ayaa mar ay arintani ka hadashay waxa ay tiri inta badan balaastikada hadda warshaduhu ay soo saaraan dib looma cusboonaysiin karo, ciiduna ma cunto, sidaa darteed boqolaal sano iyo kumanaan sano isma bedelayaan. warbixinada aan helayno qashinkaasi aad ayuu u fara badan yahay, waxaana ku qasbannahay inaan ka fakarno sida aan uga adkayn lahayn dhibaatadaasi. waxaa intaasi raacisay tilakoobyadu waxa ay sheegayaan in 300 oo tan oo ka tirsan qashinka balaastikada ay sanad kasta ku darsamaan qashin qubka. inta badanna ciiddu ma cunto oo bakteeriyada ciidda ku jirta ma samayso, sidaa darteed qaybaheeda ciidda ayay ku jiraan ilaa marka uu roob yimaado oo ay ku biiraan biyaha badaha iyo sidoo kale webiyada. arrintaas oo ka dhalanayso in ay sumoobaan kalluunka iyo sidoo kale shimbiraha inta badan ay u geeriyoodaan. haddaba si guud laga soo bilaabo dhexbartamaha qarnigii tegay ilaa maanta aadanuhu waxa ay soo saareen 8.4 bilyan oo tan oo balaastikada ah. 66% waxa ay isku bedeleen qashin ka buuxa goobo badan iyo sidoo kale badweynta, iyadoo ay jirto in ay sii kordhiso dalabyada ay helayaan warshadaha balaastikada ay sameeyaan. ayaa khubaradu waxa ay ku talinayaan xukuumadaha iyo sidoo kale wadamada si loo qaado tallaabooyin dheeraad ah oo dib loogu soo cusboonaysiinayo balaastikada si looga fogaado dhibaatooyin waaweyn oo dhanka deegaanka soo gaara oo aan laga kabsan karin oo ay sababayaan bacaha iyo sidoo kale caagadaha. si kastaba bacaha ayaa laga mamnuucay qaybo ka tirsan dalka sida Somaliland oo kale, iyadoo ay jirto in Puntland laga wado olole ka la mid ah oo lagu mamnuucayo. waxaa la og yahay in bedel fiican la heli karo oo looga maarmo bacaha oo ka caafimaad wanaagsan deegaankana la saaxiib ah, kaas oo ka mid yahay saladaha adeega oo hadda meesha ka baxay.